baadiya nin lagu dilayaa magaaladan aan joognaa nin dukaankiisa u socdo xataa baadiya wax lagu dilaan ogeyn xataa duu ogaan la waxba ka dhicila moogta waba carir lahayd in wax la dilay xataa ma ogo wuu iska socdaa waa la dilay oo maxaa loo dilay aana qabiila loo dilaalay oo maxaa iska galay ninkan muxuu sameeyey dukaankiisuu furanayay meeshii isu socday mid ay isku qabiil yihiin ayaa meel wax ku dil alakhdu bitha wa aslu jahilkaas marka waxaa la rabaa mas'uuliyadda inaynu fahmno ah ruuxii wax sameeya asay ku kooban tahay qabiilkiisa ma ah meesha aan ku baaba'nay ku halaagsan waxay tahay dembigii ayaa waxaa la dhex gelinayaa meel aan laga soo qaban karin oo waa halkee dembiga ciddii samaysay keliya hadduu ku kooban yahay waa la soo qaban karaa laakiin dembiga waxa la sameynaya qofaa la dilay tusaale ahaan maalan waxaa la leeyahay ree hebel ayaa dilay ree hebel say ku dileen ma intay shir qabteen oo telefishin laga soo daayey ayay go-aano intay niqaasheen dadka dhan wada arkaayeen yaa waxay dhaheen ruuxaas hebel aan dilno markaas waxaa la dhihi karaa intay ku tashteen ay dileen laakiin mid tuug ah oo aan qabiilkaba xataa ka amar qaadin oo khaa'in ah oo qabiilkaba dhibay ah qof dilaaya markaasaa nin fiican oo mutacalima oo aqoon-yahan oo wanaagsan waxaa leeyahay isku reeray yihiin kaasaa la dilo marka xaggee laga keen arta mataasa diin islaam walaa taziru waasiratun wisra ukhraa wa an laysa lilinsaani ilaa maa sacaa dhibkaas saan uga baxaynaa marka waxaan uga baxaynaa afkaarta dembi isku xambaaridda ah waa la eeday oo kii dembiile ah meel wuxuu haayaa uu kula dhuunto u dhex galo wax kasta intuu qasto wuxuu leeyahay reerkaygaa loo jeedaay reerkaw isdifaac adiga war reerka looma jeeda adaa lagu jeedaa lama dhahayo ummadaha kale maxay ku hormareen mid hadduu wax dilo qof ama dembi samaynaayo markaasaa dadkoo dhan ayaa wada raadinaya midaa waxaa indonesiyaana waxaa la yidhi mid soomaali banaankaas joog la sheekaysta wuxuu yidhi waddankan soomaaliya dagaalada aan dhammaanayn maxay ku dhammaan la'yihiin wuxuu yidhi waxay la dhammaan la'yihiin qabiil qabiila la isu dilaayaa markaasa wuxuu yidhi oo qabiil qabiil maxaa la dhahaa ummadda mogtay mar hore intay arrintan ka gudbeen yaa reer magaal intay noqdeen yaa waxay wax ku qaybsadaan mabaadi iyo deganaansho iyo sida ay tahay wuxuu yidhi waxaa qabiil laga wadaa inaa isku abtir noqonaysa intaasaa qabiil la dhahaa in kaley la dagaalayaan kaasi kaasaa isdagaala markaas waxaas maxaa la isku dagaalaan waxaa hadda adig ka soo qaadali maalan walaalka hadduu wax dilo kan indonesiyaankaa la yidhi maxaad samayn lahayd adig walaalka hadduu wax dilo oo intuu soo ordo guriga ku dhuunto wuxuu yidhi booliska u sheegi lahaa waxaan dhihi lahaa walaalka ninkii wax dilo halkan uu ku jiraa markaasa waxaa li oo maxaad ugu sheegi booliska walaalkaa waa la qabanayaa haddaana booliska u sheegin beri aan u dilayaa leanna qof ogolaada inuu dad dilo walaalkiina wuu dilayaa meeqaan aragna walaalo isdishay qofka markuu wax barto waxaa la gacantii qaadqaad barata gumudkeeda dhaqaaqa haddii la gooyo xataa gacanta tuugada wax qaaqaad haddii gacanta taa laga gooyo oo wax yar loo soo reebo intii yareeda dhaqaaqaysa gacan wax qaad baratay gumudkeeda dhaqdhaqaaqa marka ruuxa barta dembiga in lala xambaaro khalaas fii ma'manin meel aamin ku jira waa la xambaaraya waxbuu qasaa yaa sameeyey asagaa bilaabaad ree hebel arrintaas ha ka garbaxeen oo ree hebel maxaa arrintaas ka gar adaa samaysee ree hebelkii iskama qabanayaan ma dhahay waryaa tuugiyo annaga dadka hanugu laynin sharciga ma horgeynayaan haddii qof walba qofka xataa ugu dhow uu sharciga horgeyn lahaa dadku way cabsan lahay waa la kala joogi lahaa islaamkuna saasuu in amray yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina bilqisdi shuhada'a lilaahi walow calaa anfusikum aw ilwaalidayni waalaqrabiina in yakun ghaniyan aw faqiiran faallahu awlaa bihima falaa tattabicu alhawa an tacdiluu wain talwuu aw tucriduu faina allaha kaana bima tacmaluuna khabiira soo aayad qur'aana ma ah soo manhajkeenni ma ah soo dastuurkeenni ma ah limaada aan ugu camal fali lahnay marka limaada la isugu xambaaraya waxyaabaan marka bal horta inaan maskaxdeenna bedelno oo aan ahan hadda wixii ka dambeeya mas-uuliyaddu waa shaksi qof walba wixiisa asaga ayaa iska leh aayadda qur-aankan ilahay muxuu ina dhahay faman yacmal mithqaala daratin khayran yarahu waman yacmal mithqaala daratin sharan yarahu qofkii khayr samaysta iyo qofkii xumaan samaysta asagay ku kooban tahay marka inaan qof walba saa ugu sheegno oo qabiilkan laisuu garbinaayo oo dulmiga laisugu kaalmayn la iska daayo haddana waxay tahay waa suu nabigu u tilmay sal allahu alay wasalam dacuuha qabyaaladda iska daayo nabigu iska dhaafa fa inahaa muntinatun way soo uraysaaye waa bakti yani ruuxii ka shaqeeyana wuu soo uri waana la arkay haddaad aragtaan ruux qabiil u ololaynaya aakhirkiisa fiila meeshuu ku dambeeyo waana la arkay wax ma noqonaayo soomaalina cudurka kala jaami waa kaas lixdameeyadii markii isticmaalkii la dagaalayay oo ummaddu inay ummad noqoto dhibkaa waa un haystay un waxaa laga garanayaa suugaanta soomaalida iyo taariikhdeeda suldaan timacadda markuu leeyahay dugsi male qabyaaladii waxay dumisa mooyaane wuu arkay moogtahay leanna qabiilkiia hoos usii kala babaxaaya ree hebel jufe hebel jufe hebel jufe salkuu tegaaya marka ummadda waxaa rabaa in kor laga qabto marka
مسلم نمو إنما المؤمنون إخوة المسلم أخو المسلم هذه هوس لو سو دوا أنت اسكو ميل دقنو اسكو قوميات إلا إذا مثلا شعوبا شعبية وقبائل وحال وقت أي تهي لتعارفوا محلو كل في عيني إن أكرمكم عند الله أتقاكم سلوك العبس بدنيات قف وين وكراميو waxa uu umadu ku soo kordhinayo marka deena waxaynu u baahannahay yaani khilaafka siyaasiga ah uu dhib badan yahay dad oo hawshaasi ayaga